بسم الله kusoo dhawaada channelka Zahir Maxamed waa aniga Zahir maanta waxaan qaadan doonaa casharkeena 13aad ee maadada macroeconomic maanta waxaan qaadan doonaa trade-ka aan ka soo hadalnay casharkii hore iyo capital flows-ka maxaa ka dhaxeeya linki ah marka inaan ugu horreyn ka hadlaynaa capital flows maxaa la dhahaa capital outflow maxaa la lahaa iyo linkiga ka dhexeeya kadib trade-ka iyo capital flows. Horta capital flows-ka waxay noqotaa waa dhaqdhaqaaqa oo lacageed taasoo sabab u ah in maalgashi ku imaado ama wax dhoofin oo trade ah ama business production ku imaado waaye. Net capital outflow badanaa waxaa la xiriiraa wixii trade-ka maxaa yeelay wax oo waxaa waaye foreign countries-ka iyo domestic country-ga iyo waxay isku dhaafsadaan. Tusaale ahaan oo kale capital outflow waxaa lagu helaa waxay ku imaadaa waa saving-ka oo laga jaro investment. Wixii marka saving u ahaa oo aad ka jartay investment-iga wixii soo baxa waxaa la net capital outflow. Net capital outflow maxaa noqonaa isna waxaa waa countries purchase of foreign asset minus foreign purchase of domestic asset. Waxaa wadankii wuxuu soo iibsaday wadanku waxyaabaha soo iibsaday uu foreign asset-ka uu ka iibiyey oo waxaa laga jaraa wuxuu foreign asset-ka foreign countries-ka ay ka iibsadeen domestic asset-ka ay ka iibsadeen waa la kala jaraa kadibna waxaa soo baxaya magaciisa macnaha wuxuu noqonaa outflow macnihiisa ama waxaa la dhihi kartaa magaciisa mar walba in saving-ka lacagtaada waxaad ka jaraysaa investment. Tusaale ahaan kale hadda meeshan waxaan laba qacda laba waxyaabo noo yaalo waxaa ka mid ah tusaale ahaan kale hore waxaa u dhahan soomaha net capital outflow-gaaga hadduu wuxuu la mid yahay oo saving-ga oo laga jaray investment. So saving-kaaga hadduu uu ka bato macnaha kan waa greater calaamadan greater than hadduu ka bato macnaha investment-iga taas macnaheed maxay noqonaya macnaha investment-iga aad samaysay iyo saving-kaaga weli saving-kaaga weyn taas macnaheed waxaa waa wadankan wuxuu noqonayaa waa wadan lender ah net lender ah. Wadamada waa waxaa waaye oo asiga wax deymiya lacag deymiya. Tusaale ahaan kale wadamada hadda barwaaqo soorka badanaa iyaga wax deymiya lacag dadka waxay siiyaan wadamada oo third countries-ka iyo lacag ay deymiyaan jirto oo qofka soo markii muddo yeeshaan lacagaha Soomaaliya oo kale leeyahay kale inta noqon karta marka wadamada badankood lacagaha ka go'an oo saving-koodu badan yahay lender ay noqdaan badanaa iyaga waxay deyn haddii uu saving-kaaga oo less than yahay less than hadduu yahay oo ka yar yahay investment-kaaga marka waxaa u baahan tahay investment badan u baahan tahay investment-kaas marka waxay noqonaya inaad country-gaas wuxuu noqonayaa borrower inuu lacag soo deensado oo asiga mar walba uu lacag oo investment raadiyo ama u dhaho halii maal gashto lacag deyn ah laga sameeyo marka saving-ka iyo investment-ka xiriirka ka dhexeeya waa sidaas. Hadda waxaan rabnaa inaan xoogaa yar adraaf gareyno linkii ka dhexeeya oo kale trade-ka iyo capital flows-ka. Okay aan bilaabno marka net export-iga waxaa hore soo qaadanay inuu yahay export minus import. Sidoo kale waxaa la dhihi karaa waa output-kii oo laga jiro consumption-ka consumption-iskaaga marka isku jiro macnaha waxaa soo baxaya trade-kaaga oo nadiif ka soo baxaya markii oo domestic-ga output-kaaga oo laga jiro wixii consumption ahaa oo la xiriiray waxaa soo baxaya net export ayaa soo baxaya. Tusaale ahaan kale marka sidoo daraaddeed waxaa dhihi karnaa export-iga waa output-ka import-iga waxaa waaye waa consumption maadaama oo import oo part oo kamid ah of consumption-ka
uu ka mid yahay maadaama waxa lasoo dhoofsanaan ay badankood yihiin waxa loo consume gareynayo. Okay, qaacidadan rabnaa inaan sii draft gareyno tusaalahaan oo kale qaacidada badanno marka waxaa dhahanay oo kale tusaalahaan oo kale net export waxaa dhahanay keliya waxaa rabnaa si aan usoo saarno ka dhexeeya capital flows iyo trade-ka waa draft garinaynaa tusaalahaan oo kale waaye waxaa sameynaa mainska waxaa ku dhufanaynaa groupkan marka waxay noqonaysaa minus plus minus I minus G. Okay, markay saan tahay waxaa isoo midaysaa wixii oo y plus c plus g isoo mari minus I y. marka saa markay taagan tahay waa output-ka oo laga jaray consumption-ka oo private ah oo laga jaray consumption-ka oo public ah. marka intaan la isku jaro intaan waxaa isku noqonaya waa saving waay. saving waxaa lagu helaa waa output-ka oo laga jaray private-ka consumption-ka iyo public consumption-ka minus I minus investment matahay. marka saan tahay net export-ina wuxuu noqon karaa saving plus I markay tahay tusaalahaan oo kale hadda capital flow-gana wuxuu ahaa capital flow-gana wuxuu ahaa s plus I sidaas badanaa linkii ku noqonaya. marka taas macnaheed waxay noqonaya in oo trade balance-ga uu la mid yahay net capital outflow. Okay, marka maxaa dhihi karnaa marka xaaladan taaginta maxaa dhihi karnaa waxaa dhihi karnaa haddii uu country-ga uu yahay macnaha trade deficit oo ku jiro taas wuxuu macnaheed wuxuu noqonaa in oo net export-gaaga oo ka yaryahay 0 kadibna ama wuxuu noqonaa markii loo hadla asi capital outflow not borrower oo noqonaa maxaa yeelay mar walba waxaa ku jiraa heesta oo mar walba ayda waa ka yar tahay. marka saas waaye markaa ka hadalno linkii ka dhexeeya capital outflow-ga iyo trade-ka net export-ga. marka cashirka intaas wuxuu egyahay badiisataa u baahan tahay wixii su-aale committee ugu soo reeb cashirka intaan caawa kusoo keenaynaa wixii su-aalena waa kaas insha allah cashirkan 4 maalmood ay qaadan doonaa halkaas ayaan ku sismeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.